ninkii ka yaabsaday Mareykanka ee ahaa tuugii ugu la yaabka badnaa. Ninkan inta uu jeelka ka baxsada ayaa uu meeshuu rabo wax ka soo dhici jiray ama ka soo xadi jiray, isla markiibana waxa uu ku soo noqonayay jeelka. Malaa ninkani jeelka ayaa uu saaxiib ka dhigtay ninkan oo xaday bangi ku yaala Mareykanka iyadoo ay gaarayso lacagtii uu ka xaday 4 milyan. isla markaasina waxaa la soo geliyay xabsiga. xabsigii markii uu ku jiray 2 cisho ayaa uu dareemay inuu ka caajisay, isla markiibana waxa uu isku dayay inuu ka baxsado, waana u suurta gashay inuu jeelkii ka baxsado. jeelkii markii uu ka baxsaday ayaa uu warqado foojiriya sameeyay, isla markaasina lacagta laga sameyn jiray isagoo ka siistay 10 milyan. run ahaantii waa lacag aan yarayn. ninkani markii uu lacagta qaatay halkii uu ka baxsan lahaa ayaa uuba iska tagay xabsigii, kadibna waxa uu sheegay inuu soo xaday 10 milyan. waaba la yaab, nin xabsiga iskeenaya dad waxaan arki jirnay ka carara. isla markaasina waxaa lagu xukumay 20 sano. muuqaalku nala dheeraaday, qayb labaad ayay leedahay, la soco qaybta labaad.